السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan akhyaarta waad salaaman tihiin. waxaan ugu barateen filimaanka kooban oo islaamika diini ah. insha allah markaan waxaan idiin soo wadnaa filim ku saabsan dhallinyarada hadda joogto guurdoon. dabcan badankooda guurdoon ay u badan yihiin. wiilka dhallinyaraha markuu gabadha shukaansada ee isbartaan sheekaystaan, arrinta waxay u gudbinayaan. dabcan gabadha waxay u sheegaysaa waalidkeeda, waxay leedahay wiilkaasa isbarannay waa sheekaysanaa. waalidka badanaa marka waalidiinteena khayr allah siiyo, ilaahay ha barakeeyo. waxaa zaa'id u badan gabadha in wiilka loo diido oo loogu diido qabiil, yacni qabiil hebel waaye mise qabiilkeena ma ahan, shisheeye waaye, mise qarash la'aan, qarash ma haysto. xadiidku wuxuu ahaa, nabiga sal alla alay slam wuxuu dhahay, hadduu idii imaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiina idin qanciso, waxaad siisaan gabadha siiya, gabadhiina siiya. waxaa xadiidka waxaa ugu dambeeya, haddaad siin weysaan, haddee saas ay dhici weyso, waxaa imaanaya fasaad weynaa imaanaya, fasaadun kabiir. marka meeshaan waxaan la hadli rabaa waalidiinta gabdhaha dhaleen, inay hadduu yimaado dhowr gabdhaa la arkay oo wiilal fiican intay keensadeen ee u soo bandhigteen reerka, si xalaala isku rabnaa wiilkan inuu i guursado, reer aa wada dhaqanno. wiilka waxyaaba badanaa lagu xujiyey, wuu kasoo bixi waayey, waa la iska fasaxay. gabadhi waxaa dhacda marka inay ayada duurkeeda iska gasho, waayo wax xalaal markay si ku weyso qaab xaaraana u soo baxayo. hadda qisa yar liiga sheekeeyey, waxaa jira hadda ka hor gabar ayaa jirtay, wiila iska heleen. wiilka macallin waaye, wax ma haysto dabcan. gabadhi ciddeedana waa reer taajiriin ah. gabadhii arrintii hooyada u soo bandhigtay. marka hore gabdhaha badanaa hooyooyinkay u badan yihiin. hooyada u soo bandhigtay, wiilkaana iska helna, hooy waa sheekaysanaa, waa sidaan. hooyadii waxay ku tiri, wiilka maxaad haysataa? markaasuu wuxuu ku yidhi, hooy aniga hadda wax ma haysti, macallinaa iska ahay, wax fiicanna ma qaati, laakiinse gabadhaada waa ku filanahay, waa biilan karaa. maamada meesha laga raba inay soo dhaweyso waxay dhahday, maya, adiga wiilka way ciirisay. gabadhii dabcan wiilku way is jeclaayeen, jecelkana waa wax shay cajiiba. marka gabadhii wiilkii weeska yacni jecelkooda uu sii zaa'iday. waxaa dhacday marka khalad inay ku dhacaan, zino. ilaaha naga qabtee, zinay ku dhaceen. gabadhii wiilkii markay zino ku dhaceen ayaa waxaa dhacday, zinadii gabadha uuray ku qaaday. hooyadii dabcan gabadha way aragtay caloosheeda, uur inay leedahay. markaas waxay ku tiri, yaa iskale uurkan. markaas waxay ku tiri, wiilkii aa ku keen jiray, aa dhihi jirtay, lacag iyo qarash aa ku xujayn jirtay, ayaa iskale uurkan. khaladaa naga dhacdhacay, saasuu ku yimaaday. waxaa dhacday marka hooyadii wiilkii u wacday, waxay bilowday inay tartiib ula hadashay, dhahdo, wiilkayga waxba kaama rabi, shaqii wax walba anigaa ku siinaayo. waxaad samaysaa gabadheydana aabbeed anigaa kala dhicinaa la hadlaayo. waxaad samaysaa gabadheyda guurso, wax walba miseega anaa kala dhicinaayo, dahab iyo meherka iyo wax walba dhexdooda adiga gabadha wiilka iyo hooyadeeda way heshiiyeen. saasaa lagu heshiiyey. kadib waxaa dhacda marka wiilkii waxaa lagu yidhi in badan 2 sano oo kale meel kusoo maqnaa, honeymoon oo kale, adiga meesha iskaga soo jooga, kadib soo laabta. marka waxay soo laabteen gabadhii oo cunugii dhashay uurka lahayd. marka aabbaha muusan dareemin, aabbaha ma la dareensiinaynin. qisadaasna waxay ku imaatay, waxay tahay wiilka markuu gabadha cidda ay isbaranayeen, haddii la sii lahaa gabadha ay isjeclaayeen, dabcan qadaran way jirtaa, laakiinse sababaa keeno. sababta keenta waxay ahayd in yacni wiilkii gabadha loo diido, ayagana is jeclaayeen. dabcan khaladaa ka dhacay. waxa ula jeed muhiimada ula jeed waxay tahay, wiil hadduu aabba haddaad tahay mise hooya haddaad tahay, dabcan ragga aabbooyinkaa la hadlayaa mise walaalaha oo mas-uuliyadda haya, hadduu wiilkaa soo doonto walaashaada mise gabadhaada, siduu nebiga sal ly slam sheegay, waxaad ku fiirisaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa. hadday ku qanciso sii. waxyaabaha kale ilaahay un baa haya, risqiga yaa bixiya, ilaah yaa bixiya. waxaa laga yaaba maanta inuu taajir yahay, beri uu faqiir noqdo. waxaa laga yaaba walaashaa markuu mise gabadhaa markuu gursada inuu faqiir yahay, balse